falimaha rasuullada cutubka 7 markaasaa wadaadkii sare wuxuu yidhi waxaanu masaasa markaasuu ku yidhi walaalo iyo aabbayaalow dhegaysta ilaaha maantu wuxuu u muuqday awoowaheen ibraahim markuu mesopotamiya joogay intuusan haaraan degin oo wuxuu ku yidhi ka soo kac waddankaaga iyo dadkaaga oo kaalay dalkaan ku tusi doono markaasuu ka soo kacay dalkii reer kaldiyiin oo wuxuu soo degay haaraan oo markuu aabihiis dhintay ayaa ilaa meeshaas isaga ka soo wareejiyey oo keenay dalkan aad haatan deggan tihiin oo dhaxalna kama uusin xataa meel uu cagtiisa dhigo laakiin wuxuu isaga ka ballan qaaday inuu dalka mulki u siiyo isaga iyo farcankiisa ka dambeeyaba in kastoo uusan dhal lahayn ilaah sidan buu u hadlay in farcankiisu degi doono dal shisheeye oo iyaga la addoonsan doono oo 400 sannadood la dhibi doono ilaah wuxuu yidhi qurunta iyagu ay u addoonsamaan ayaan xukumi doonaa markaas dabadeed ayay ka soo bixi doonaan oo meeshan iigu adeegi doonaan oo wuxuu isaga siiyey axdiga gudniinta isxaaq oo maalintii 8aad ayuu guday isaga isxaaqna wuxuu dhalay yacquubna wuxuu dhalay 12 aynu ka soo farcannay kuwii aan ka soo farcannayna intay yuusuf ka masayreen ayay waxay ka iibiyeen masar laakiin ilaah baa isaga la jiray oo dhibaatadii oo dhan ka samata bixiyey oo axsaan iyo xigmad ka siiyey fircoon oo ahaa boqorkii masar markaasuu isaguna wuxuu isagii taliye uga dhigay masar iyo reerkiisii oo dhan haddaba waxaa masar iyo kancaan oo dhan ka wada dhacay abaar iyo dhibaato weyn awoowayaasheenna dhuuni bay ka waayeen laakiin markii yacquub maqlay in masar sarreen jiro ayuu markii ugu horraysay awoowayaasheen diray oo markii labaad waxaa walaalihiis la aqoonsiiyey yuusuf markaasaa fircoon wuxuu gartay yuusuf qoladiisii markaasaa yuusuf cid u diray oo u yeedhay aabbihiis yacquub iyo dadkiisii oo dhan oo ahaa 75 qof markaasaa yacquub masar tegey isaga qudhiisii waa dhintay iyo awoowayaasheenba waxaana la geeyey shekem oo la dhigay xabaashii ibraahim qiimaha lacagta kaga iibsaday wiilashii xamoor oo shekem joogay laakiin markuu soo dhowaaday wakhtigii ballankii ilaa kula ballamay ibraahim ayay dadkii ku soo kordheen oo ku bateen masar tan iyo intii boqor kale oo aan yuusuf aqoonin masar ka kacay isaguna waa khiyaameeyey dadkeenna awoowayaasheenna wuu xumeeyey oo wuxuu ku qasbay inay ilmahoodii yaryaraa iska tuuraan si ayan u sii noolaan muusena wakhtigaasuu dhashay oo wuxuu ahaa wax qurux badan oo 3 bilood ayaa gurigii aabbihiis lagu hayey markii la tuurayna fircoon gabadhiisii ayaa qaadatay oo sidii wiilkeedii oo kale u korsatay muusena waxaa la baray xigmaddii masriyiinta oo dhan hadalladiisa iyo falnimadiisuna xoog buu ku lahaa laakiin markuu gaadhay 40 sannadood oo buuxa ayaa waxaa qalbigiisa gashay inuu walaalihiis oo reer binu israa'iil ahaa soo booqdo oo markuu arkay midkood oo lagu gardaroonayo ayuu ka celiyey oo intuu kii la dulmayey uu aarguday ayuu masrigii dilay oo wuxuu u malaynayey in walaalihiis garteen sida ilaah gacantiisa iyaga ugu samata bixinayo laakiin ma ay garan oo maalintii ku xigtay ayuu iyagoo diriraya u yimi oo wuxuu damcayey inuu heshiisiiyo markaasuu yidhi niman yahow walaalaad tihiine maxaad isu dulmaysaan laakiin kii deriskiisii dulmayey ayaa isaga iska riixay oo ku yidhi yaa nooga kaa dhigay taliye iyo xaakin ma waxaad doonaysaa inaad ii dishid sidaad masrigii shalay u dishay
markaasaa muuse hadalkaas aawadiis cararay oo sidii ajnabi buu dalka midyaan u degganaa meeshaasna 2 wiil buu ku dhalay markii 40 sannadood dhammaatay dabadeed ayaa waxaa isagii buur siinay cidladeedii uga muuqatay malaa'ig ku dhex jirta geed dab ka ololayo oo markii muuse arkay ayuu wuxuu arkay la yaabay oo intuu u soo dhowaanayay inuu arko ayaa waxaa u yimid codkii rabbiga oo leh anigu waxaana ilaaha awoowayaasha ilaaha ibraahim iyo ilaaha isxaaq iyo ilaaha yacquub markaasaa muuse gariiray oo ku dhici waayey inuu eego markaasaa rabbigu isaga ku yidhi kabaha cagahaaga ka furfur maxaa yeelay meesha aad ku taagan tahay waa dhul quduusa dadkayga masar jooga rafaadkooda waan arkay taahoodana waan maqlay oo waxaan u imid inaan samato bixiyo haddaba kaalay masar baan kuu diri doonaaye muusaha kan ay diideen oo ku yidhaahdeen yaa kaa dhigay taliyo iyo xaakin isagaa ilaa ugu soo diray gacanta malaa'igtii geedka uga soo muuqatay inuu ahaado taliyo iyo samato bixiye kanaa iyaga masar ka soo saaray oo yaabab iyo calaamooyin ku sameeyey masar iyo badda cas iyo cidlada 40 sannadood kanu waa muusihii ku yidhi reer binu israa'iil ilaa wuxuu walaalihiin idinka dhex kicin doonaa nebi sidaydoo kalaa kanu waa kii ku dhex jiray kiniisaddii cidlada oo la jiray malaa'igtii isaga kala hadashay buur siinay iyo awoowayaasheen kii la siiyey hadallada nool inuu ina siiyo isaga awoowayaasheen ma ay doonaynin inay adeecaan laakiin intay isaga riixeen ayay qalbigooda geliyeen inay masar dib ugu jeestaan oo waxay haaruun ku yidhaahdeen inoo samee ilaahayo ina hor socda maxaa yeelay muusihii inaga soo kaxeeyey dhulka masar garan mayno waxa ku dhacay markaasaa waxay wakhtigaas sameeyeen weel oo sanamkii waxay u keeneen allabari oo waxay ku farxeen shuqulkii gacmahoodu sameeyeen laakiin ilaah baa ka jeestay oo wuxuu faraha uga qaaday inay u adeegaan guutada samada sida ay ugu qoran tahay kitaabka nebiyada bal reer binu israa'iil oo 40 sannadood oo aad cidlada joogteen ma anigaadi siiseen xoolo qalan iyo allabaryo weliba waxaad qaadateen taambuuggii moloq iyo xidigtii ilaaha remfan oo waxyaalihii aad u samaysateen inaad caabuddaan haddaba waxaan idin kaxayn doonaa baabuloon shishadeeda awoowayaasheen waxay cidlada ku hayeen taambuuggii maragga sidii kii muuse la hadlay ugu amray isaga inuu u sameeyo sidii qaabkii u arkay kaas ayaa awoowayaasheen markoodii la soo qaadeen yeshuuca markay galeen oo qaateen dhulkii quruumihii ilaa awoowayaasheen hortooda ku eriyey ilaa waagi daawuudna ilaah hortiisa ayuu wanaag ka helay oo wuxuu weydiistay inuu ilaahii yacquub u helo meeluu dego laakiin sulaymaan baa guri u dhisay habase ahaatee kan ugu sarreeyaa ma dego goryo gacmo lagu sameeyo sida nebigu leeyahay samadu waa carshigayga dhulkuna waa meeshaan cagaha saaro rabbigu wuxuu leeyahay guri cayn maad ii dhisi doontaan ama maxay tahay meeshaan ku nastaa miyaan gacantaydu samayn waxyaalahan oo dhan idinkan madaxa adag oo aan qalbiga iyo dhegaha laga gudinow weligiinba ruuxa quduuska waad hor joogsataan sidii awoowayaashiin yeeli jireen oo kale ayaad idinla yeeshaan bal nebiyada keebaan awoowayaashiin silcin xataa iyagu waxay dileen kuwii hore u sheegay imaatinka kan xaqa kan idinku aad haatan gacan geliseen oo disheen waxaad sharciga u hesheen sidii wax malaa'iguhu
hagaajiyeen laakiinse ma aydnaan xejin haddaba markay waxyaalahaas maqleen way ka xanaaqeen oo u ilka jiriqsadeen isaga laakiin isagoo ruuxa quduuska ay ka buuxa ayuu samada aad u fiiriyey oo wuxuu arkay ammaanta ilaah iyo ciise oo midigta ilaah taagan oo wuxuu yidhi bal eega waxaan arkayaa samooyinka oo la furay iyo wiilkii aadanaha oo midigta ilaah taagan laakiin markaasay cood weyn ku qayliyeen oo dhegaha furaysteen oo iyagoo isku wada qalbi ah ku yaaceen isagii markaasay intay magaalada ka soo saareen dhagxiyeen kuwii maraggaana dharkoodii waxay ag dhigteen nin dhallinyaro ah oo la odhan jiray sawlos markaasay dhagxiyeen istifaanus oo rabbiga baryaya oo ku leh rabbi ciisow ruuxayga qaado markaasuu jilbag joogsaday oo cod weyn ku qayliyey oo ku yidhi rabbiyow dembigan dushooda ka dhigin oo markuu sidaas yidhi ayuu dhintay